السلام عليكم ورحمة الله. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا خالق دمانتين سودا دانتين وإذن سلامي مركل يو فيديو عصب يو ولا شنشامة فاميلي اسكو سو نقد وناكسان او وعن سيتين مئي وعنتهين. الحمد لله أنا قوافي عنا هاي بش يو برواق وميلو الباء دونك أكد جوكتين فرحات عافمات رين يا يقولون والله أنا كان هاي قريبنا هذا يتاي مركي كوغور رئيسي حشمات الله سبسكرايب في إسارة دا إلى جو جرتين قيبت لايك جزاك الله خير. إيه نسود دواذا فأوجد ما أنت حجابك جايوين بنانك كي ماذا الحمد لله فيديو قروح بدن واني دياري مركو حندا أصحاب ذات السلام هاد علي سيد قروح بدن يوتيوب وضان وكلك عنوين لايك شير كومنت دع لو وسينوي حاس بحي بل هذا السلام مريم فانتن إعلان كيجنا وجدين هي ببرد أسكاي مو كذينو يا قبل إلى إيسار ما شاء الله وبيجسي لخمو يابو marka insha Allah routine qurux badan kaale arag yani wada oo karaala naqda meel inta wax ku soo daatay marka insha Allah gabdhow like share comment gana noo saara routine keenan waxaan ku dhahay dhamaad ila bilowna noo daawada insha Allah bye bye asla socono fiidiyeeni iyo gudaha u sii galeena ma sha Allah sa u jeedinba walaalayga qaaliga ah waxaan sameynay gurigan iska soo xaaqay waxaan rabaa inaan aado sheeg adiga magaalka haduu ilaahay irmo mar labaad waxaan rabaa alaabooyin inaan soo iibsado idinkana insha Allah horaani kaxeenaya haduu ilaahay raali ka noqdo guriga cusub waxaan rabaa inaan soo iibsado decoration sida sheeg waxyo waxaan rabaa sheeg adiga waxyaalo badan oo gurigaas aan u rabo insha Allah guriga cusub waa iska taqaaniin maba la soo koobi karo alaabtiis ma ahano marka maadaama meel cusub aan degaayo waxaan leeyahay actionka ku dhawey hadda labadii xabo ka soo qabsan karto ka soo qabso waxa laga yaabaa magaaladaas hadhow inay xooga iga dheer yihiin oo anigana caruur yar aan wadaa marka saastal ajligeeda inaan gaari raaco ka degto u ban raaco ka degto hadana ii sheeg adiga midkaas kale aan ka soo iibsado hadana aan soo laabto hadana u ban aan soo dhiba igu naqanay marka kan dariskeyga waa jaarkeyga ma garateen dukaamadan saan u dhowdhowaaba u xiisi doonaa tuulooyinka dukaamadooda waxaan ku dhahay maasha Allah ay ku dhow yihiin ma fahanteen marka meeshan gurigan ka waayay ma ahna maba ka guuri leen waayo waa bartay Soomaa meeshasna Ilaahay meel khayr qabta nooga dhigo saa u jeedinba qolka hadda waa soo xaqay waa soo tirtiray waxay ii tahay 8 saac maalinimo maxaa yeelay hadda qabowah maadaama lagu jiro meel walbaba mugdiya soo galay 8 saacadiiba la gaaro sas la ajligeed marka guriga hadda iska nadaafinoya musqush waa u jeedin meel walba hoolan ka heena aniga gabdhahayga Ilaahay ii barkeeyo xoogooda ma sha Allah tabarakallah hadda sa u jeedinba musqush waxa ku jirto gabadhayda anigana waxaan ku dhahay waa soo xaq waa soo tirtiray hadda ma sha Allah qolka ilmaha waa kaasaa waa la soo xaqay waa la soo tirtiray meeshan waxa ii hurdoos gabadhayda adna hurdoos meeshan xooga iska hirgabsan oo iska seexatay amiir xataa koray saaran tahay markii la qaday kadib waa marka salaadii buu isdul saaran yihiin doona daati ku tid wax yar kadib casar waa wax yar kadib maghrib waa marka waxaas dhahay maghrib tuko kadib leh hadana laabo anoo hadda dhowlay magaalka ka imaado u jeedin jilbaabkayga ii weynaa hadana waxa isleeyahay casarka tuko hadana cabaar joog maghribka iska bixi markaas la aaday caruurtada israaca oo ayadana hawada soo qaateen aan leeyahay maadaama isbuucan guriga ii joogan oo wiilkayga yaraa iga xanuunsanaa hirgab iiga dhacayo waxaan ku dhahay matag iiga soo boodayo hadana shoon iiga soo booday alxamdulillah oo ii fiican yahay hadda alxamdulillah saa u jeedinba qadada waxaa noo karsan koosto iyo bariis cad markaan casar iska bixiyay leeba qadeynayba ma sha Allah kale iska arag jikada nadiif waa sideeda kala qudaartooda banaanka u soo dhigaa mar walbaba say meesha ugu qabtaan waxa waay talaajada qabow zaaid ay ku noqonay mar walba waxa jeclay banaanka inaan soo galiyo
maanta waxay nooga shidneen bakoosto iyo bariis cad ma fahanteen lama qaybsaneen anoo diyaariye leebanayta sooyaa karaale naqda codkaygana xoogaa waxaan ku dhahay uu xabiibsan yahay hadda dhowaa hurdo ka soo kacay fiidiya markaan codka saarayo waa subaxdii arbaco ah laakiin fiidiyahan wuxuu ahaa talaado maasha allah guriga waa ujeediinay hadaa iyo hadda before iyo after aa lahaa alaabtan ma fahanteen dharkayga meeshaan ku wartaa maadaama qaboobo uu jiro birta gudahan soo geliyey waa kas nadiif aan ka dhigay kaale iska arag yaa wax kastaba waxaa haysatid hadaa quruxsatid nadiifsatid wax kaa halaabay malahan armaajada already waa lasoo nadiifiyay calamadeena meesha noogu safan inaan Soomaali nahay aan muujinayna ma garateen Soomaali in leeyahay la muujinayaa kuraasti waa kaasa maasha Allah qadada aan mar walba waxaan galiyaa maradan ma fahanteen waayo maradan way ku xifdinay hadii saaxiib ciyaal aad tahay maasha Allah tabaaraka Allah waa kaasay guriga nadiif aan ka dhigtay marka banaanka aaday waxaan jeclahay guriga inaan nadiif ka dhigo si hadhow anoo daalan marka imaado oo dharka la iska bixino oo waxaan ku dhahay salaada cishaha le aan tukado oo hore iskaga seexano caruurtana cashadooda hore aan ka siiyo already cashadooda xitaa waa diyaarsaday marka aan u jeedin waa soo baxnay guriga markaan saas u soo nadiifiyay waa kaas qabowga adduunka jiraan ku dhahay saas isku soo xirxiray yaa beebiyaasheeda gaariga ii saaran yihiin waxaan leeyahay idinkana hawada soo qaata ilmaha haday qaboob jiro iyo hadii kuleel jiraba mar walba waxa u fiican inaad banaanka soo saartid maxaa yeelay qabowgana inay bartaan waaye oo hawo fresh ay soo qaataan xataa beebiga yar waa soo saaraa aniga ma fahanteen laba cisho hadii guriga aan isla joogno waa soo saaraa si hawadaas freshka u soo qaato waayo guriga naqaskiisaaba caafimaad lahayn hadii si kasta daaqada u balaqdid oo waxaan ku dhahay marka hawada freshka u fiican ilmaha waa u jeedin hadda waa 12 saac maalinimo waana mugdi ma fahanteen maanta gurigii korkeena la sameeynayaa shanqarta iyo buuqa karaale naqda hadii aan maqashiino gabdhow ma fahanteen sa u jeedin ba mugdi way magaalada maasha Allah ani gabdhayga soo wada raacnay kadib waa imaaday dukaan qurux badan oo waxaan ku dhahay familiyadana u roon way decoration badan ugu gadaa oo qurux badan guriga aad ku taseen gareysanaysid sa u jeedin ba hadda waxaan soo qaaday mishaag adiga saacadahan waxay ka caawinayaan hurdada oo kale markay kula tagto way ku soo kicinayaan gambaleey leeyihiin ma fahanteen marka waxaan weydiiyay naagta meesha ka shaqeynayso inuu karaal naqda maanta xabeeba igu dhagan in ii sheeg adiga gambaleelka uu shaqeynayo aan weydiinaa inuu kii gambaleelka yahay in kale ii weydiiyaan dhahay asaga waa igu dhahin laba xabaan soo qaatay hal gabdhayga waaweyn u gelina halna gabdhaha yaryar ma fahanteen inkastoo aniga xataa saacad iigu xiran tahay laakiin bini aadana ahay waxaa laga yaabaa haddii hurday la tagtoo kale inay iyaga isoo kiciyaano kadib tanna waa qaadanaa muraayada laba xabaa meesha taalay mid weyn iyo mid yar midaanna waa soo jeclaaday meel waxaan u rabaa marka irida laga soo galayo kale inaan decoration ahaan aan ku dhagsado miis yar aan u sameysto hada insha Allah guriga saa u design gareynayo waan ila soo wadaagi doonaa asxaabteyda qaaliga tihiine waxna inaga qarinaay ma jiraan de walaalayaal ma garateen video like share comment-iga noo dhaha subscribe-ka insha Allah wuu socdaa hadana hore u dhaqaajiyo haduu Ilaahay idmo ma sha Allah maalmahan fiidiyeen wuu socdaa wuu shaqeynayaa jazaakallahu khayr sida quruxda badan oo noola shaqeynaysiin waa ku mahadsantihiin jazaakallahu khayr anigana maadaama fiidi maalin kasta update aan ka dhigi ما شاء الله سأوجدين بقى waxaan ku jiraa qaybta kale hadana waxaan soo qaatay markaan soo qaatay muraayadii alaabii kale qaybtaana waa qaybta decoration-ka naftarkeeda oo qurux ka dhigay guriga hadii shumacyadaas shumaca loogu tirgalay bahaladan aan soo aruursanayo quruxay ka dhigay hadii shumac ii sheeg adiga ah gashatid laba nooc waa marka labadii nooc midkan qaadan la ku wareersana iska kuwiga iska soo cishaday meeshaana maasha Allah waxaan ku dhahay waxyada gashanaysaa kor ayay ka gelinaysaa qurux ayuu noqonayaa insha Allah aday wax badan aan soo aroorsaday dumar hadaan anaga hadii meel decoration aan tagno wax kasta waxaan jecelnahay inaan iska soo aroorsano ma fahanteen lacaga kugu yaraanayso iyo waxaan ku dhahay yaa waxaan dhama qaadi kartid ma qornaba kiiba ka qurux badan hadaan helno hor la soo daldalaa beenku mishiigay anoo waxaan ku dhahay caruurtii wado hadana laba bac decoration aan soo gaday ma sha Allah tabaarakallah ilaahay waxaan ku dhahay xoog hanoo barakeeyo
caafimaadkan hanoo barakeeyo cimri dheer oo cibaado suubanna dhammaanteen ilaahana wada siiyo aamiin yaa rabbi. hadda igu cusub tahay biliis si xishmad leh waxaan kaaga codsanayaa fiidiyeyga hadda la kulantay subscribe-ka ii saar, share iyo comment iyo like-na insha Allah waa dhankaaga. hadduu ilaahay raali ka noqdo wax kastoo qurux badan waxaan jeclaa inaan nila soo socodsiiyo. hadduu ilaahay raali ka noqdo saa ujeediinba weli dukaankii aan ku dhex maruuqinooyaa, aan ku dhex rafanooyaa, aan ku dhex dabaalanooyaa yaa maasha Allah tabaaraka Allah. sidaa iigu soo duceysan waa ku mahadsantihiin gabdhaha guriga raadinayaan. ilaahay ayagana guri kheyr qaba ha u sahlo oo sahlan inkastoo sahlan ee jirin kurbaha quraan iska akhrista insha Allah. sideedoo kale markaan daalay anigaba quraana la iisoo akhriyay kadib ilaahay noo sahlay. marka quraanka wax badan oo furfuraa hadduu ilaahay raali ka noqdo. marka quraan akhrista quraan la-aan waxaan ku dhahay maba la liibaanaba. adkaartana afka ku haaya ma fahanteen, mar walbaba adkaarta afka ku haaya. maxmiriiso aamus maama aamus maxameda meeshaan ku dhadheelooyo anigana codaan saarooya ka sheekeeya alaabaan qurux maahano. labadoo xabaan soo qaatay kaale iska arag maasha Allah waa ujeedeen labadaasaan soo qaatay. ayagaba madow iyo waxay ku imaadeen iyo cadaan. horta wixii alaab ahaa waa lasoo jabiyey. Black Friday waaye ka faa'iideysta hadduu ilaahay raali ka noqdo. waxaa lagu jiraa Black Friday waxaa la lahaa qofkii yaqaanin waxaa waa bisha madow ama bisha madow saas le waaye adi kolley bisha 11 ay soo jabiyaan alaab kasta. aniga hadda kan maasha Allah aada ugu soo helay. mid kaanaaba kasii daranba kaas yariis waaye kanaa kasii daran maasha Allah. waa soo qaatay hal xabo idinkaaba arki doono. marka bishan waa bishii wax kasta lasoo jabinayay. gabdhow ka faa'iideysta decoration haddii guriga niiga dhiman yahay. soonna wuu soo dhow yahay malagaa ka dhow ma fahanteen. soonna wax yaraa noo dhiman adiga 4 bilood ama 3 biloodaa dhiman hadduu ilaahay raali ka noqdo. waa ujeedin miiskaasna decoration yar albaabka hortiisaa dhiganaysaa kaale iska arag. muraayadan waxaan ku dhahay meel yaraa suranaysaa goldi waaye alaabta. waa ujeedin ma ahano kaas buuxo dhanaan soo qaatay. intaasoo dhan waxaan ku dhahay decoration leela marooyaa dhalooyin hadhaheen wax kasta waa soo arooriyaan ku dhahay. marka insha Allah kheyr ay noqonaysaa. fiidii halaan haddaa soo gaarto waa ku mahadsan tahay. jazaakallah kheyr. like-ta share-ta commentigana hanaga reebin hadduu ilaahay raali ka noqdo. fiideo dambe oo xiise leh intaan dib hawadan igu soo marinayo anii familkeyga oo isku duubanoo waxaan ku dhahay yaa anii caruurteeda oo isjiidoona reer Shama family meeshaasaan iga soo salaamoonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. akhiiran aan soo gaarnay lacagtii aan bixinaynaa gurigeena u soconaa. bye bye. xaafadda imaado waa ujeediin alaabtiina meeshaanaan soo dhoobay maasha Allah tabaaraka Allah. cimri aan ku dhammaysano ilaahana siiyo. gabdho waxaan iiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. bye bye.